Soomaaliya hogaamiye walba oo yimaada inkastoo shacabku aysan soo dooran oo doorasho qof iyo cod aysan ahayn haddana doorashooyin marba magac loo yeelo hadda tii u dambeysay leeyahay doorasho dadban waaye leeyahay Soomaaliya hogaamiye noocee ay u baahan tahay suxufi warunta hogaamiye walbaba anagoo u sacbinayna ayuu yimaadaa markuu tagayana anagoo qaylinayna qaar habaarayna ayuu tagaa xaqiiqada jirta caynkaas waana xaqiiqada waana sababta loo doonayo in la ogaado hogaamiye noocay Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye la soo tijaabiyay sooyaalkiisa nololeed xagga bulshada wuxuu ka qabtay dhaqaalaha wuxuu ka qabtay hore loo yaqiinay oo aan haddaan marka hore soo tijaabin lahayn sooyaalka shakhsigan bulshada dhexdeeda ma soo maalgashtay dhaqaalaha suuq u ahaa ethicskiisu suu yahay hogaannimo wax ma soo qabtay yani any shaqo ama bulshada rayidka noqoto waxbarashada noqoto muxuu exactly soo qabtay haddaan marka hore ka fikri lahayn ma naashalayneen that's why madaxdanada aan mar walba ma dhahayo specific kan ma dhahayo kuwii ka horreeyay dhammaan saasaan madaxweyne farmaajo 3 maalin baan dabaaldegayna ugu dambeeyay madaxweyne xasan waxaan professor baa maanta qabsaday waxaan leeyahay madaxweyne okay shariif sidoo kale bulshadu ka soo dhaxbaxay waa macallin jabra jaamacadeedu ahaa laakiin lama dhihin qofku nasiibku ku soo baxay lama filayn waliba farmaajana la filaynin laakiin haddii la yiraahdo oo qaysow okay shacabka Soomaaliyeed yuu doonayaa waxa u haboon hadda ku haboon musharaxiinta taagan intay scanning ku sameeyaan yaa ku haboon oo dalkan wax ku soo qabtay dhaawac aan lahayn qabyaalad aan lagu ogeyn yani political damage yani ama siyaasadda aan ku soo fashilmay saasay dadku dhahan ba qaar qof siyaasadda ku soo fashilmay wali taagan yani Soomaali miyaa laga waayay qof wanaagsan musharaxiinta miyaa laga waayay qof wanaagsan yani qof u qalma dalkan lagu aamini karo dhinac walba laga helay ayaa ku haboon marka saa la sameeyo ayaa Soomaaliya waxay helaysaa hogaamiye ku haboon saameynaya shakhsi walba gurigiisa bulshadiisa beeshiisa maamul goboleedkiisa marka hogaamiye ku haboon dalkan goormo imaanaya markii shacabka Soomaaliyeed ay codkooda ay dhiibtaan oo hogaamiyaha rabaan ay doortaan ma imaanaya mise maanta oo aan ku jirno doorasho dadban oo xildhibaano aad ogtahay sida lagu soo xuray ayuu imaanaya sidoo ku imaanaya hogaamiyahaas wanaagsan marka su'aasha aad u wanaagsan wuxuu ku imaanayaa maanta in hortaala mar walbana sanayna hortaalle toddobaatameeyadii waxaan soo dayacnay inaan shidaalka naloo soo saaro oo carabta waqtigaas shidaalka loo soo saaray hadda maanta fursad waan haysanaa shidaalka inaan dayacin sidoo kale ayaan maanta hogaanka wanaagsan ayaan maanta u haysanaa maanta waa inaan dayacin hogaamiyaha Soomaaliya ku haboon oo dhaawac siyaasadeed aan lahayn sooyaal fiican ka soo tagay waxbarashada wax ka soo tagay qabtay bulshada wax ka soo qabtay qabyaalada aan shaqo ku lahayn ama ba tusaale sidaan dhahay for example dadba hadda Allah naxariista elman Allah naxariista wada suu wax ku soo bilaabay yadu markaa waad yareedo urba yani wuxuu ku soo bilaabay qoriga dhig qalinka qaad rag lamid ba hadda taagan oo waqtiga intay ka soo bilaabeen hala tag aan dabada tagin ayagu awooda lacag haysta aan dabada tagin qurba joog aan noqonin laakiin dalkiisa maal gashtay aanu ma kala qaybinayo laakiin shacabka ay u taala ayay u baahan yihiin xildhibaanku soo doonaha uu ku imaaday waxaan leenahay maanta ayuu fursad haystaa inuu Soomaali bedelo Soomaali badbaadiyo naftiisa badbaadiyo oo qaranka u dooro hogaamiye ku haboon beeshuu doonaa ka soo jeeda ayaa maanta badbaadin kara sidee bulshada looga soo dhax saari karaa sidee lagu heli karaa bulshada waxa lagu heli karaa dabcan inaan bulshada bedelo oo doorka aqoonyahanka u qaato oo bulshada lafteeda la bedelo sidoo sheegay waa sax cilmiga ijtimaac sociology-ga qaba markii hogaan laga hadlayo sociology baa la aadaya sociology-ga waxa ka dhaxbaxay politics-ka waa in marka la hela dad bedela bulshada dhaqankooda hab dhaqankooda waafajiya sida haboon oo madaniga la soconaysa waa in la hela dad siyaasadooda bedela waa dad in la hela dad abuura ownership lahaansha dalka ayaa muhiim ah markaasna hogaanka waa in lagu cabiraa horta qof oo changing for better dadka sida hadda lagu jiro si ka wanaagsan mid la geyn karo laguna cabiro marka sooyaalkiisii wax qabad taas muhiim ah marka لأن هذا نكون عبر الرسول شيء دكتوركو يا واحد بدن بحي وادباته لكن وين نكون عبره أنت نسكان سارة يا وحسوق بطي طبعا ذاك وين أكسر وين أكسر خليه وقف في عنه بالشدة كجرين وسلمان تأود ولا هاي لأنه وحي يسكب بحي وين دب مركل دب لا إيجا ها أوكي لنا عكلا بالشدة لفتنا ذو منا شيئين أوكي أقويان كده شوقي يكوي هربا ولو منا شيئين سامنت أكو يلانيس هجان كحن سامنت أكو يلانيس عف يعني نلاشودا سياسة دودا يعني هنكودا دين تودا ومنا شيئين لكن هدي لقوا على العلم لا دونك الدولة دونا جوا لقوا على العليات بل لقوا عليها لكن سوماليا
waxa hoggaan wanaag waxa laga hadlaa marka motion jiro marka doorasho la qabanaya waa in marka hore hoggaanka wanaagsan lagu celceliyo si ay u doortaan hoggaanka ugu habboon dadka mar walba noo taagan oo wax dooranaya taasaan qabaa waa in la yiraahdaa Soomaaliya yaa ku habboon in dhaqaale la helo in amni wanaagsan la helo in dastuurka la dhameystiro in for example deganaan siyaasad la helo yaa ku habboon haddii la yiraahdo annaguna aan for example aan post gareeno waxa ku habboon dadkan oo u sheegno hoggaanka wanaagsan saas uu wanaagsan yahay waa in for example dadka ownership naga dhaxayso kasoo soo khilaafsanahay waa in for example la yiraahdo wadaniyada la baro dhaqanka wanaagsan la baro wixii khaldan aan ka weecino markaas waxa la heli karaa in bulshada ay ka soo baxaan dad wanaagsan ku yimaadana ay doortaan qof wanaagsan because waxaan uga dignay kan xun dhibka uu keenayo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa sidii aan marka hore iriba Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye ku habboon wanaagsan qofku uu ka fikiro hoggaankan uu dooranayo inay isaga saameynayso caruurtiisa saameynayso maamul goboleedkiisa saameynayso dalkan diintiisa dhaqankiisa ay saameynayso sida haddaba haystaba iyo markii hore haystaba